lacagtan la yiraahdo crypto waa lacago cusub oo hadda adduunyada ku soo kordhay lacagahaas madad gudoomiye ma aha dollarka caadiga ah warqada ma aha dahabkii la yaqeenina ma aha waxa la yiraahdaa digital currency sal yiraahdo al-umlaat raqmiyan carabiga lagu yiraahdo lacagahaas madad gudoomiye caalamka hadda ku soo kordheen waxa looga maarmay taakooyinkii ay bangiyada ku hay jireen dadka lacagaha waaweyn haysta oo ah in markaad lacag bangi dhigatid aad isla markii ka heli karin saadarteeda waa lacagta hadda la rajaynayo in loo guuro adduunyada hadda ay u guurto madad gudoomiye saddex qaabood ayaa lacag looga sameeyaa suuqaas midda koowaad waa investment qofka inuu sameesto maalgelin oo lacagtiisa maal gasho dad badan hadda waxa jira lacagaha ku haysta bangiyada halka dollar bangiga dhigato 10 sano kadib halka dollar ku yaal laakiin caalamku hadda wuxuu sameeyay investment inaad lacagtaada maal gasho lacaga waxa jira oo kriptada ah waxa ugu weyn oo hadda aabo ah ama hooyo ah lacagta la yiraahdo bitcoin 2012 waxay joogtay halka xabo ku dhawaad $1 ay joogtay halka bitcoin macna qofkii ka maal gasho lahaa ama soo iibsan lahaa meesha ugu yar aan ka soo qaadna $1 oo 1 xabo ah sanadkan halkii bitcoin wuxuu gaaray $70,000 uu gaaray halka bitcoin bitcoin wuxuu gaaray $70,000 macnaheedu maxay ka dhigan tahay marka dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay lacagtaadii waa gelisay computerka waa isku laabtay waa ka jeesatay maanta 2024 ah waxa haysataa $70 milyan kunkii xabo oo halkii xabo 70,000 waa $70 milyan ma shaqeynin yaani ma dhidin afar la saac computer ma dul fadhinin baawur ma sii saarneen ma soo saarneen suul meel ma saareen kaliya waa investment ina suuqa maal gashato mudan gudoomiye lacagahaas investmentiga ah meesha ugu yar hadda ka sheegnay waa $1 ninka 10,000 gasho lahaa 700 milyan oo heli lahaa suuqaas marka maalin kasto saacad kasto sanad kasto wuxuu soo saaraa dad milyaneero soo saaraa oo aan u dadaalin inay milyaneero noqdaan lacagta meeshaas laga sameeyo mudan gudoomiye lagama sameyn karo apartmentiyo aad dhisatay wixii ka soo galo ma ka sameyn kartid lacagta meeshaas laga sameeyo kama sameyn kartid mushaar aad qaadatay wixii aad meel ka dhigtay kama sameyn kartid dad badan oo ka faa'iideystaa jiro ayagoo da'dooda yaraa waalidkooda lacag ka qaatay suuqaas maal gashtay markay 20 sano gaareen ay milyaneero yihiin mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh wajigaas koowaad waa wajiga investmentiga wajiga labaad oo suuqan lagu faa'iideysto waxay tahay inuu qofka ka trade forex-ka camal يعني سوق مركو كعنا إنه قطع مركو سورة قيسوبان إسك إيبي وحلاقي يابا دتك قاركودا 20 هاد بوحي هيستان إنه سوق الجليان ديلي تريدر الله صبح إنه ساقعه قال كيس جيفكو كساقعه قال كله كود جنو كمبيوتر كيس بس يتجا سود وصل حرنا سي إنه نيش غيره وعمله شغلنا مصعد كمبيوتر كو كدح شغيره ومعنا طبعا كيس كونوا لجلا سوق أقان يحرفه كود سنت سوق وحكود سنت حسابات اللي ره الجوريثم كود سنت ماها جامبلين ماها سيدا وانا كسبتكو كلا لبكو واحدة وين أيام مركز صادالنا إنه بدنش ما قاعد على مركز واحدة ير إنه تنتك واحدة وين كبل جامبلين وايتاس معنا وبختيار نصيب كان لك بختيار نصيب ما وأقان كود سنت هاي حرفه الله استعماله واي xirfadaas soo baranay YouTube-da ku jiraan ayadoo Ingiriis ayadoo Carabi ah luqad kasta waa ka helay marka soo baratid suuxi waa soo fariisanay sessionka inuu furma fiirsanay New York London labadaas bangiga laga tareed gareeya marka soo gashid suuqa marka aragtid aqoontaada ay ku tusto in la bay gareenayo waa bay gareen adigna waa soo iibsanay macnaha waa soo iibsanay marka soo iibsato suuqi uu dhaqaaqa bangiyada caalamka iibsanayo tareenka socda dhinac ka raacay adoo $1 wadati iyo wax ka yar faa'iidadaada markuu ku gaaro marka xaddi waa kala bixi waa iska iibinay farqiga marka faa'iidada waxay tahay intaad gelisay iyo inta uu kacay markii la kala jaro faa'iidada intaas waa diiniyan xaraan ma aha tusaale ahaan baawura ka soo iibsatay Dubai $5,000 ku soo iibsatay xamara keentay 5,000 ma joogay 10,000 laga siinaa markii la kala jaro marka faa'iidada meeshaas ka soo baxaysa waa faa'iidada adiga aan leedahay